Banaanbax nabadeed oo lagu taageerayay xadhka jarka biyo xidheenka weyn ee webiga Abaya ayaa ka qabsoontay xarunta gobolka Doolo ee magaalada Wardheer. Banaanbaxan oo ay isugu soo baxeen guud ahaanba qaybaha kala duwan ee shacabka magaalada Wardheer ayaa isugu soo baxay barxadda kubadda cagta dugsiga hoose dhexe ee magaalada Wardheer iyo bartamaha magaalada Wardheer ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Doolo kuwa degmada Wardheer. haddaba banaanbaxan ayaa ahaa mid lagu muujinayay taageerada guushii laga gaadhay biyo xidheenka Abay ee muddada dheer shacabweynaha dalku ay kaga qayb qaadanayeen isla markaasina ku bixinayeen dhaqaalaha intii uu socday mashruucan biyo xidheenka webiga Abay. gabagabadii mas'uuliyiinta maamulka gobolka Doolo iyo kuwa degmada ayaa meel fagaaraha kula hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada ka soo qayb gashay munaasabadan isla markaasina sheegay ahmiyadda uu u leeyahay guud ahaanba shacabweynaha dalka Itoobiya. ama banaanbaxan lagu taageerayo biyo xidheenka Abay aad iyo aad baad u mahadsantihiin marka koowaad. marka labaad munaasabadeena sida hore loo sheegay waxay daaran tahay xarka jarka mashruucii weynaa ee Abay oo kulligiin aad wada garanaysaan naf iyo maalba aynu kaga qayb galnay cid kasta oo Itoobiyana oo waxa weeye shacabka Itoobiya kamida ama qoomiyadda doonta ha ahaato ama deegaankay doonta ha noqoto ama gobolkay doonta ha ahaato ama degmada doonta ka soo jeedee cid aan ka qayb qaadan dhismihiisa ma jiro. dadku si fiican buu wada garanayaa waa kii aan u jari jirnay lacagaha aan u jari jirnay weey oo bil kasta mushaarkeena lacag kamid aan u jari jirnay deeqaha kala duwan loo ururin jiray. waxaan maantay marka isugu soo baxnay inaan muujino taageerada aan u hayno mashruucaas inuu inoo horgalo maadaama caqabado badan oo siyaasadeed ay ka hor yimaadeen dalal fara badan ay ku talagaleen inaan mashruucaas hirgelin dagaalo siyaasadeed oo fara badan uu la kulmay kuwo diblomaasiyadeed uu la kulmay kuwo ilaa isku dayo ma garanaysaa amni la xiriira isku dayay intaba caqabadaas maadaama aan ka gudubnay inaan isugu soo baxno marka inaan taageeradana muujino aad iyo aad bay laga maarmaan u ahayd waana idinka mahadcelinaynaa. mashruucan wuxuu midnimada u yahay oo muujinaya midnimada shacabka Itoobiya dhamaantii sababta waxa weeye waa mashruuc ay dhamaantood wada maal gashadeen weey dhamaan shacabka Itoobiya ay wada maal gashadeen manfaciisa iyadana dhamaan sidoo kale u soo wada gaari doona hadii la yiraahdo. marka waa idinka mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad sida fiican aad isugu soo baxdeen waqtigu maadaama uu kulul yahay ahmiyadeennuna ay tahay dareenka taageeradeena mashruucaas dhamaystirkiisa aan u hayno inaan muujino waxaynu sameeynaynaa insha Allah tacaala waynu baxaynaa hadii la yiraahdo si degan oo dadku aan la isjiiraynin oo degan aynu u soomaaliyeed qof muwaadin oo Soomaali oo bartan taagan oo biyo xidheenka ka qayb qaadan mala biyo xidheenkaas dalka Itoobiyana magac buu u leeyahay si guud deegaankeena Soomaalida iyo dalkeena guudba wuxuu ahaa wax lagu soo arooriyay dhiigga iyo hantida dadka reer Itoobiya wuxuu noqon doonaa mid dalka Itoobiya magacna u yeela istiraatiijiyad gaar ah oo muuqatana u yeela wuxuu noqon doonaa ugu yaraan waxyaabaha ugu faa'iidada badan ee ka faa'iidi doono khaasatan gobolkeena Doolo tusaale leerka aan maanta isticmaalno waa biyo xidheenka kamid ah biyo xidheenada Itoobiya la sameeyay. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa marka dalalka dariska inala sida Soomaaliya oo kale innaga iska daay inaan leer quwad badan gaarsiino innaga inoo dhex marto marin fiican oo qurux badan oo inoo noqdo. waxaan u mahadcelinaynaa dadka qorraxda u soo istaagay iyo hantidii ay ku bixiyeen midhihii ay bixiyeen in midho dhalkiisii maanta la taagan yahay ma aha waa la bilaabayaa ma aha meel wuxuu maraya in la xarig jaray shaqadiina uu bilaab shacabka oo iyana geestooda warbaahinta dowlad deegaanka Soomaalida SRTV halkaas ku hadlay ayaa sheegay inay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin isla markaasina soo dhaweeyeen guusha Itoobiya ay ka gaadhay biyo xidheenka weyn ee webiga Abay. magacaygu waa Cismaan Dubad Maxamed marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa wakaaladda warfaafinta ee dowlad deegaanka waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantiin shaqo badan baad qabsateen kulley waxaan isleeyahay horumarka dalka inta badan ee dadka ugu badan ee ka qayb qaatad kabtiin marka saa darteed aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. dalka Itoobiya bulshada dawlad deegaanka dalka Itoobiya ee qaranka Itoobiya aynu nahay iyo dawlad deegaankaba waxaan leeyahay maanta waa maalin aad iyo aad inoogu weyn waa maalin maartay u baahan inaynu xusuusnaano
waa maalin in badan aynu ku taamaynay waxaan leeyahay guulo badan baynu gaadhnay markii hadda abbay waxaan malaynayaa webiga dalkeenna ka baxa cadowga badan lahaa ee dhibaato badan laynagu soo mariyey heshiisyada badan la soo galay himilooyinka aan raadinayna waxaan u sheegayaa bulshada dalka Itoobiya ama dawlad deegaanka Soomaaliyeedba inaynu maanta helay wixii aan muddo badan ku riyoonayno saa darteed waxaan leeyahay dawlad deegaanku waxa aan haysano cadow badan baynu leenahay cadowga faraha badan aynu leeyahay aan ilaashano gudaheena wixii dhib ee ka jira aynu ka ilaalino waxa inoo haray oo ogtihiin hadaynu dalka waa Yuusuf Maxamed Xirsi waxa kamid ahay odayada ku nool magaalada Wardheer dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya runtii waxa oranayaa waa maalin ku weyn shucuubta Itoobiya waa maalin ku weyn shucuubahan dariska nala ah wadamadan dariska nala ah waa maalin ku weyn misalan Afrikada marka loo eego horumarka dhaamka laga gaaray waa maalin aad iyo aad ugu weyn weeye waxaan leenahay guul la gaaray weeye aad baan ugu faraxsanahay 30 sano ama dhowr iyo 20 sano shaqadii la soo waday shucuubaha Itoobiya hadday tahay shaqaale dawladeed hadday tahay shacab hadday tahay dawlad shaqadii la soo waday ee dhaamka maanta in lagu guuleystay maanta in la xarig jaray runtii waxa weeye waa guulaan gaadhnay waa guul ay gaadhay shucuubta Itoobiya weeye aad baan ugu faraxsanahay waxaan leenahay dhammaan guulaha waaweyn ee ay ka mid tahay horaha u sii socdeen waxa kaliya inoo haray inaynu si nabadgelyo ku helno